السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلامي دمان أصحابتا maanta wuxuu ku saabsan yahay casharkeenu sidee baad loo soo degsan lahayd Windows 7 iyo 10 markaan waxaan soo furnaa browserkeeda website-kan waxaa la yiraahdaa getintopc.com marka waxaan ku qoranaa getintopc.com waa ka intaas la yiraahdaa markaynu galno noo saarayaa halkaas ku qoraysaa search taas ama operating system iskaas ka dooranaysaa hadii kale search button-kaas ayaa ku qoraysaa Windows ka rabtaa dadka oo kale waxaan ku qoranaa Windows 7 baan ku qoranaa waa ka ku soo saarayaa dadkan bil ka hor baa la soo gashay maalin kasta update baa lagu sameeyaa waa kan halka faahfaahin buu kugu siinayaa markaa rabtay inaad soo download garaysid download baad ku dhufanaysaa button-kaas xayeysiisiin oo saarayaa isaga naga gudbinaya click here to proceed ayaad ku dhufanaysaa three steps buu ku soo saarayaa marka waa ka gudbaynaa step 2 buu hadda marayaa manager-kaaga ku gudbinayaa hadana hadda start ku dhufano waa ka inoo download garaysmayaa laakiin saan hadda uma baahni way ku jiraan Windows 7 baa hadda ka aan dooranay weeyaan hadda download halka Windows 8 waa ku qoraysaa hadaan ku qorno waa ka 8.1 isagoo kuwii dambeeyay update kii dambeeyay lagu sameeyay waa ku jira sana sidoo oo kale soo download garaysanaysaa download ayaa ku dhufanaysaa intii aan hadda ku tusay oo kale sidoo oo kale uu kugu soo dejinayaa haddana halka ku qorno Windows 10 waa helaynaa waa kan February 2018 wala soo gashay sana waa update ku dambeeyay soo gashaan isagana sidoo kale un baa soo degsanaysaa ani operating system aad u baahan tahay waa ka helaysaa Linux haday ahaato Windows haday ahaato macOS waxaas dhan waa ka helaysaa marka casharkeenu maanta waxaan doonayaa inaan ku sii tuso casharkeena xiga maadaama uu khuseeyo operating system sida operating system loogu shubo computer-kaaga adoo isticmaalaya virtual machine workstation 2 waxaan tusayaa oo kale si aad soo download garaysan lahayd virtual machine workstation kanaynu ka eegaynaa asxaabta halkan aynu ka soo degsanaynaa waan isku dayaynaa website-kooda haddaynu search-ta ku qorno inta FM workstation website-keena aynu ka soo degsanaynaa waa getintopc wax kasta oo software kasta oo PC ama operating system hadday noqoto waa ka helaysaa sana sidoo kale soo degsanaysaa aan ku tusay asxaabta waa ka iyagana saas soo degsan kartaa download baa ku dhufanaysaa sidii kii hore oo kale baa soo degsanaysaa marka maanta casharkeenu intaas ku saabsan yahay waa inoo casharkan iyo kiisa kale ee xiga